always fight for my country. All I ever wanted to do is help my people. All I ever wanted to do is hustle. I've given up my comfortable life and where am I to do what I can. What I really can't do anything. Dadka hadday ogaan powerkooda dadka Israel and forget about qabiil. How long have we been living in this situation? I've chosen this government myself, thinking there's going to be a change. But today, I feel for myself. I feel for my life. Not from anything else, from my own very government. ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay habeen iyo maalin u taagan yihiin ilaalinta sharafta nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. shalay oo ay taariikhdu ahayd 4 bishii koowaad 19 abaaro 2:30 daqiiqo waxaa ciidanka booliiska u yimid dhibane xildhibaan Luul Cabdi Aadan oo ka dacwoonaysa eedaysane Maryan Khaliif Abu. xildhibaanada waxaa la siiyay rifeerto kadibna waxaa raacay ciidan
waxayna u geysay ciidankii qofkii ay ka dacwoonaysay oo eedaysanaha ahaa waa la soo qabtay markii la soo qabtay saldhigga ayaa lagu soo xiray saldhigga markii lagu soo xiray iyaduna rifeertadii bay qaadatay rifeertadii ay qaadatay way soo cadaysay dhakhtarka ayaa soo cadeeyay wataas waxaa lagu soo cadeeyay in ay tahay in dhaawac culus inuu soo gaaray xildhibaanada sida aad aragteen oo websaydyada aad ka aragteen dhib culus ayaa ku yaala sida aad sawirradaba uga jeedaan dhibkaas culusna waxaa geystay oo qirsanayd oo qiraal ahayd eedaysane maryan khaliif abuu markii la xiray oo saldhigga lagu xiray damaanad ayaa lagu sii daayey damaanaddii mar alaala markii lagu sii daayey ciidanka booliisku waxay heleen information ah in ay eedaysanihii uu ka baxayo aeroboorka oo ay fakanayso waa la soo qabtay ciidanka booliiska ayaa soo qabtay waxay ku guulaysteen inay ku soo celiyaan saldhiggeedii arrintaas waa sharci in damaanad qofka lagu sii daayo waa sharci weeye waa la ogol yahay qofka markii la damiinto oo damaanadda sharciyan lagu sii daayo qofku ma dhaafi karo eeriyadaas loo ogol yahay oo lagu damiintay oo uu dhibku ka dhacay ma uu ka bixi karo gobol kale ma aadi karo meel kale ma aadi karo sida sharcigu uu yahay weeye meel kalena ma uu aadi karo mana dhoofi karo degmo kalena ma aadi karo gobol kalena ma uu aadi karo wuxuu joogayaa ilaa arrintaas ay dhammaanayso oo sharciga la waafajinayo wuxuu joogayaa goobtaas lagu damiintay sidaas ayaa lagu ogaa damaanaddana sharciyan waa sidaas ayadoo baxsanaysaa la soo qabtay mar allaala markii la soo qabtana waxaa lagu soo celiyey goobteedii saldhigga ayay joogtaa saldhigga ayay ku xihan tahay sidaa ayaana maaragtay ay arrintaasi ahayd xildhibaanadiina waa ay joogtaa dhibanaha ahayd ayadiina saldhigga ayay ku xihan tahay damaanaddana macnaheedu waa sidaas inaan meesha la dhaafin in aan meeshaas laga tegi karin weeye macnaheedu waxaa ummadda soomaaliyeed looga digayaa oo ciidanka booliiska soomaaliyeed uu uga digayaa sida sharciga ah hadalka macnola'aanta ah oon sal iyo raad midna lahayn oo baraha bulshada loo adeegsanayo qofkii lagu qabto oo lagu helo asagoo hadal aan sal iyo raad midna lahayn u isticmaalaya baraha bulshada wuxuu rabaa ha ahaado haysano alxamdulilah dad kaloo ka aqoon badan laga yaabaa inay jiraan oo Soomaaliya laakiin may soo tartamin waxa kamid ah hadda Yusra Braaro kale war habeen madoobad xabad lagu qabtay oo Soomaaliya caadsatay markaas waxaad rabtaa inaad tirado muwaadin Soomaaliyeed baan u doodayaa kuwa maanta le muwaadin Soomaaliyeed oo aqoon leh baan u doodayaa dabcan waa kuwii shalay Yusra Braar ka caadsaday Muqdisho qabyaalad iyo takoorid iyo waxay doontaba iyo corruption iyo hunguri waxay doontaba lagu caadsado Yusra Braar gabadh reer Boorama bay ahayd gabadh aqoonteeda iyo xirfadeeda lebay ahayd warqaday qortay baan akhriyay oo ay leedahay waliba madaxweynaha ay u qortay oo ay leedahay madaxweyne intaas oo jeer baan kula soo socodsiiyay handadaada la igu hayo wax talaaba kamaad qaadin ima aadan taageerin inaan cararay dantu igu qasabtay marka ilaa yarta waxa ka rajeynaya hadduu ajnabi noqdo ninka maamulaya banka dhexe Soomaaliya inaan dhibkaas oo kale loo geysan teeda kale board baa jira ama guddi banka dhexe mas'uulka ah oo go'aamadiisa gaarayso oo Soomaaliyeed soo ninkani nin hantidiina la cararayo meel kale la aadayo ma aha sharciga dalkuuna ku shaqeynaya aqoontiisa iyo maskaxdiisa la adeegsanaya marka maskaxda iyo aqoonta wadan kale laga keeno faa'iido ay nootaan anigu qabaa haddii aad ku andacoonayso waa inuu haystaa dhalashada dalka ama uu haystaa aqoonta dalka ama luqadda dalka ku hadlaana maaha hadda uma diyaarsana dalkeena uma diyaarsana waana gaari doonaa insha Allah maalin aan fogeyn in la yiraahdo qofkii ajnabi oo dalka ka shaqeynaya waa inuu dalka luqadiisa yaqaan dhalashadiisa haysta intaas oo sano joogo waxyaabo badan oo la isku xidho ayaa jira adduun weynaha marka cunsurnimada la iska daayo maanta hadii ilhaan cumar markay shalay u tartamaysa baarlamaanka Mareykanka la oran lahaa wanaag yaro madow oo khamaar xidhan oo Afrikaan oo ma rabno wada xanaaqi lahaydeen dabcan wasiirka immigration ka shaqeeya Canada markuu ku guuleystay aqoontiisa oo ku gaaray ciidamo oran waxa tahay Soomaali xun oo qaxootiya
markii uu cabdiqawi ninka haddeerto loo magacaabay ayaan dhaweyd maxkamadda caalamiga ee Hague qabiilkiisa iyo midabkiisa midna cid kuma takoorin marka takoorka waxaasoo kale ma wanaagsano waxyaabo qaar oo badan oo naga dhiman way jiraan oo aan gaari doono haddii Ilaahay yiraahdo muna kay iyo xaaladeeda u soo noqonaya marka muna dabcan waxa xildhibaanada dhalinta yar ee lagu tashanayay ee baarlamaanka Soomaaliya ku jira dhalinyaro iyo iyadoo khibrad aqooneed leh adduunka yani sidoo u dhaqmo iyo wadamo horumaray ku soo kortay iyadoo sida ay tahay oo dhalinyaro tahay oo waliba dumar tahay oo waxyaabo badan yani laga filayay kale maanta waxay samaysay anigu waxaan ku farxay ma aha waana wax iyada u daran runtii xasaanadeedana way ku weyni kartaa sababtuna waa tan aniga markii ugu horeysay fiidiyowgeeda daawado oo ay leedahay walaashay waa la xidhay booliiskii way soo baacsadeen waa lay kala tuuray in gurigayga la igu soo celiyay oo inayso anigu waan ka naxay waana aamini waay waxaan dhahay waxaan wax macquul ma hadii lagu sameeyay walaashay xabsi loo diray dhahdo laakiin reality-ga wax badan oo iga qarsoona ayaa markaan dad badan wacay xogo badan la isiiyay wax badan baa meesha iga soo baxay waxyaabaha meesha iga soo baxay hadaladeeda markaan miisaamay qayb ka mid ah way ii fasirayeen inay waxaan la ii sheegay ay riihin hadalkay sheegaysayna qaybo badan ay been ka tahay muna markii loo codeynayay sharcigan lagu meel marinayo ama sharcigan lagu maamulayo baanka dhexe ee Soomaaliya in qof ajnabi ah gudoomiye looga dhigi karo waxay ka mid ahayd qoladii diidayna aad bay runtii u yarayd waa lambar yar buu ahaa marka loo barbar dhigo 162 ogolaatay muna way xanaaqday haddii laga codbadsado oo aad ku jirto baarlamaan umad dhan baad matashaa wixiina waa cod dheeri inaad xanaaqdo waa qalad waxa kaloo qalada qofan baarlamaanka ku jirin inuu soo galo baarlamaanka waa qalad walaasheeday hore u soo wadatay baarlamaanka ay soo gashay taasna qalad kale bay ahayd oo ay samaysay iyada xasaanad wadato oo xildhibaana oo mas'uulka ummadda Soomaaliyeed banaanka markii loo soo baxay meesha dagaalku ka dhacay dadku waxay leeyihiin magalaha shacabka dhexdiisa mise waa banaanka sababtoo ah in mindida lama geli karo golaha shacabka dabcan iyadan laga ogolayn inuu qof aan baarlamaanka ku jirin oo golaha baarlamaanka galo bay dhacday khalad baa dhacay taana waa la oran karaa mindida hoosta lagu wato iyadana khalad baa dhacay laakiinse anigu waxaan isleeyahay sidaas oo dhan uma baaba'sana golaha shacabka oo mindiya la iskala ma geli karo laakiin maadaama mindi ay ka mid ahayd wixii lagu dagaalamay dabcan banaanku dagaalku horta ka dhacay banaanka markii loo soo baxay oo xildhibaanadan dhaawaca loo geystay ee luul iyo muna ay murmeen walaasheed waxay ku booday islaantii maamadii hadda sida la sheegay cusbitaal baa la dhigay dhaawacyo badanna waa loo geystay runtiina xildhibaan xasaanad sida oo isagu xor u ah meeshuu u codaynayo waad kala duwanaan kartaa fikir ahaan intaasoo qof oo meesha kula fadhiya markay noqoto cod ama gacantaag oo lagaa tiro bato maaha inaad xanaaqdo tirada see layga codbato dadka maad ku duufaysaa meesha laguma geyn in xoog wax lagu meel mariyo ee waxa lagu geeyo codkaagu meeshuu raaco hadday noqoto lambarka yar waa nasiibka hadduu lambarka uu codkaagu raaco uu batana waa nasiibka laakiin miyaad dagaalamaysaa ma dagaalamaysid gabadhii markii ay dagaalkii qaaday oo ay xildhibaanad ay dhaawac gaadhsiisay sharciyan waa khalad qof xildhibaana oo xasaanad sita intaad ku boodo inaad jirkiisa dhaawac gaadhsiiso hadal waxaa doonto ku dheh laakiinse inaad dhaawac gaadhsiiso waa qalad waad aragteen sawirada maamadan iyo sida loo galay ee wajigeeda loo baabi'iyay iyadoo xasaanad sida iyadoo xildhibaanada iyadoo lagu weerarayo codkeeda kadib waxa dhacday booliisku meesha joogay waxay qabteen gabadhii faldambiyeedka geysatay faldambiyeed iska daa xildhibaane haddaad shacab kale u geysato ama qof kula mid oo kale u geysato waxaa khasaba qofka aad dembiga u geysatay oo aad dhaawaca gaadhsiisay in madaxiisa lagu xidho waana wax dunida oo dhan ka jira oo sharciya haddayna Soomaaliya aqoon haddaan maanta qof gacan u qaado ilaahu maan dhaawac korkiisa ka muuqanaya xitaa aanan gaadhsiinin haddaan gacan u qaado xabsi baan hore ka gelayaa waa wax sharci oo adduunka oo dhan yaala gabadhii markii ay dhaawacii gaadhsiisay xildhibaanadii waa la xidhay markii la xidhay muna waxay isku dayday inay hor istaagto askartii
هي قفدن أو شرع الدجية أو قلها شعب كفردية أو سومالي مثل ما أورانيا walaalkay dambiga uu galay laguma qaadi karo because waa walaalkay walaasheed xildhibaanu ma aha Soomaali bay muna xildhibaanu tahay taa way ilowday kow waxa dhacday markii gabadhii la xidhay waxa soo damaantay ninka aad wada garanaysaan ee ku caan baxay 30 milyan haysta taana waa arrin kale oo calaamad su'aal weyn baa saaran markii la sheegay aniga waxaan maxay tahay reasonka uu soo daayay maxay tahay nin xil dalkii ka haya miyaa ma wuxuu soo daynayay yani qof uu damiinan karaa hadda aniga haddaan xabsi galo oo dambi galo adeerkay in adeerkay walaalkay qofaan wax wadaagno ayaa dhigaya sharcigiisa ka bacdina damaanad baan ku joogayaa banaanka qofkaasaana mas'uuliga ah laakiin se ninkan 30 milyan leh riisanka meesha geliyay maxaa ka dhaxeeya markaan ku waxa la igu yiri labada gabdhood mid kamid ah xiriir ka dhaxeeya sidaan wax leeyahay bal horta ifahma aqliyada yaran yari way wareertay oo garan maayo waxan meeshan ka socda